السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa ii sheegaya asxaabta waxaan ka hadlaynaa dadka caasiwaadeenka ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo waalidka xaquuqda oo leeyahay waxay jirta ka qabto Sheekh Axmed Kenyawi wuxuu ka leeyahay wala dhageysta nala fiirsada. waxaa oo leeyahay gabadhii hooyada darbaaxay subxaanallah ilaahay naga koriyo waxaan waalidkeena ku darbaaxno waalidkeena waxaan u nahay adoon alla na siiyay oo na siistay waalidkeena waa inaan ixtiraamnaa aan sharafnaa aan qiimeynaa aan madaxa saaranaa haddee dhintaan haddii nool yihiin ma ahan waalidka wax dhidhil ma aha lama heli karo wax la heli kara ma aha way darbaaxday aa lagu leeyahay kadibna wixii ku dhacay balfeeri iyo khasaaradii ku dhacday وجزاء سيئة سيئة مثلها حمان حداب سميسان أبالك سوا محي وحمان كلم حداب هو يقدر باحة ومفتي هو يقدر بموليس هو يقدر كاي وركينا أنجليس ولا بيقول الأنجليس أبالك هذا محاوي وحيا بسميسي وحكدرنا وبسمينا صوماها وحاو حوايه وحقي هو يدا قوانا وحق قفتي قورتك قفتي وحقي هو يدا ويدا حقي يدا مرقويو سيال بربع عيار بدنودي وقت المقشف سيدي إلا شما نبتل وحالك وكالي جرتي يا وريا أقول إنسان كان أقول نبتي سنة وحار إلهي من كل داريه أو لغو كاليو دري عيدا إن لغو متغو يا أقول ونوغشين حتى تصور بأن نبتك على حاركة سيالسا okay wuxuu dhahay maasha Allah Allah ku barakeeyo aad iyo aad u macruuf ayay khatar soo jeeday oo heerde caasi adaa iska dhigay maahan Ilaahay ma ka dhigo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay caasi janno ma galo oo heerde inta dunida ku nooshahay waalidkay haduu nool yahay iyo hadoo dhintay oo ka raba ixtiraam wuxuu ka rabaa xaquuq hooyo sida loo kugu jirto Sheekh Axmed Kenyawi wuxuu ka leeyahay maqlaysaa liiho si gabar yahay war caasnimada iska daa hooyadaade adiga hadda markaas oo hadda cantuf marka lagu tuf dagaalaasii oo cantuf igu tufto dagaalamay Soomaa korkeeda ku xaaroosa waa ku kaadihe waa ku matage ka waran ee wali ku sii shumane afkii ku shuminaya hadana aad arbaaxay indii shalay qashinka ilaalinay adigoo wax yar ah oo quraanshada lagu dhaxdhigo oo waxba iska celi karin ay macnaha waalidkaaga ee ku ilaalinaysay
habeenkii dhowr iyo toban mar ay kusoo kacdaa way ku dhaalle markay xanuunsan tahay ma seexato way murugootaa waxyaade haddaad weyn tahay way kaa fikirtaa haddaad guurs way kaa fikirtaa haddaad dhashid way kaa fikirtaa waxay la fikirtaa waxaad dhashay la fikirtaa waxyaade fiir waalidka sayba hooyo ixtiraam gooniya leedahay wixii qiimo ee noloshaada ku leedahay hooyo ka dhigayso wuxuu ku leeyahay sheekhaan صح لا سجلين والدين إحسانا والوالدين إحسانا جدا sidoo u hadlaayo waalid xaquuqda uu leeyahay macnaha waxyaalo uu ka leeyahay waa maqlaysaan hala sheergaray filinkan meel kasta la gaarsiiy fariinkan niyaho daacasi tahay toobakeen gabriha daacasi tahay toobakeen hooyada hadalkeeda dhegeyso haddana wuxuu haddana kasii leeyahay dhegeyso xaquuqda waalidka uu leeyahay okay xooggaagi waxaa iska leh 70% hooyada siday ku lahaatay ka dhageyso sheekhu wuxuu leeyahay
شمي قاعدة يومياني لهاي بلاي بالكلانية أفركي لأضوي عوش قوودي سيال بلد بيكو دا هويو قبل حتى أدينا فيني ودردوبي يهيرونا ويفردون يهين هويو مركي لسعة قبلها ويكتليا ما جاري كرتو وحد يقول لي هويانا أنا أقول لي أمور كذا كجفتا الله حقيقي الله حقيقي هويو marka waa maqasheen wadaadka khayr allaha siiyo daliil firdawsi ee camalkiisa allaha u saaro aad iyo aad loo wacyigeliyay khayr allaha siiyo leeyahay waa maqlaysaa adoo 4 kiilo ah 4 kiilo oo caloosha ku wada habeenkii ee kugu kortukanay ee caloosha kale ka oo ka yar wax ay u kala jirto oo ka weyn wax u kala neysay waxay dhaniyaho mise gabariyay إلهي الله وأنت هذا لمن كهر والد كاغني اسك إلالي أنت سو كليا كلها يعني أحكي لكم قديما في كان الشهر هذا الدهور كم أنت هذا صوب بحيو بريمشنا ووضعنا هذا أنا صوب بديو